laga soo bilaabo markii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam loo iib keenay waddanka masar oo laga iibiyey isaga oo wiil yara si adoonnimo ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray inuu isagu madax ka noqdo waddanka masar muddo yar kadib wakhtigaas ayaa waxaa u soo guuray waddanka masar walaalihii waxay ku bateen oo ku tarmeen waddanka masar boqorrada xukunka waddanka masar isaga dambeeya waxaa lagu naaneysi jiray fircoon waxay intooda badan ilaa muddo ah ixtiraam u hayeen reer bani israa'iil iyaga oo ku ixtiraamaya nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxaa in muddo ah kadib waddanka masar xukunkiisa qabtay fircoon ka mida faraaciiniyiintii kaasoo reer bani israa'iil si aad iyo aad ah u nacay wuxuu ku soo rogay inuu wiilashooda laayo iyagoo dhan addoon uu ka dhigo gabdhahooda iyo dumarkoodana uu ku shaqaysto waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo saaray nebiyullaahi muusa calayhi salaam kaas oo noqday badbaadadii reer bani israa'iil iyo halaagii fircoon iyo qoomkiisa reer bani israa'iil way bateen oo aad ayay u bateen wax faa'iido ahna ma noo hayaan shaqada u dira tiradii shaqaalaha way bateen tiradoodii aad ayay u bateen reer bani israa'iil maxaan ka samaynaa boqorkaygiiyow wakhti ku filan ma shaqeeyaan waxay shaqeeyaan subaxii ilaa galabtii wakhtiga ay shaqeeyaan u kordhiya mid kasta oo shaqayn karay shaqo ayaan u dirnay carruurta iyo dumarkana waxay ka shaqeeyaan meelo kale ilaa iyo goormaan dhibaatadan ku jiraynaa waad ogtahay inuu ka soo dhaabixi doono reer bani israa'iil wiil asaga gacantiisa uu fircoon ku halaagsami doono laakiin xalaal calayk duqa faaliyayaashana waxay leeyihiin wakhtiguu wiilka soo bixi lahaa waa soo dhowdahay waraada waalidihii aanugu soo dhow yihiin iisoo urusha dadka wax sheega oo dhan kuwa wax faaliya kuwa riyooyinka fasira kulligood saaxiriintana ku soo dara soo urusha dadka wax sheega oo dhan kuwa wax faaliya kuwa riyooyinka fasira saaxiriintana ku soo dara haddaba dabkii aan riyada ku arkay ma wuxuu ahaa baad leedihiin wiil haa wiil reer bani israa'iila boqorkaygiiyow oo halaageenna oo dhan ma isagaa sabab u noqonaya iyaga way ka badbaadayaan sida ay leeyihiin qofna igama badbaadin karo iyaga haa haddaba dila wiil kasta oo dhasho oo reer bani israa'iila waa yahay boqorow markii in muddo ah wiil kasta oo dhasha oo reer bani israa'iila la gowracayay ayaa waxaa la waayay cid shaqaysa sababtoo ah wiilasha dhashana waa la gowracayay odayadii reer bani israa'iilna way sii duqoobayeen markaas ayay fircoon qoomkiisii fircoon u yimaadeen waxayna u sheegeen inaan cid shaqaysan lahaynin sababtoo ah wiilasha dhasha ee reer bani israa'iilna waa la gowracayaa odayadiina way sii duqoobayaan markaas ayuu fircoon wuxuu soo saaray amar in wiilasha dhasha sanad la daayo sanadka xigana la gowraco
bani israa'iil odayaashu way ka duqoobeen oo ka dhimanayaan wiilashina waa ka gowracaysaa ayaa noo shaqaynaya aad bay u yaraadeen oo wax shaqayn kara ma jiraan wax shaqayn karaa ma jiraan shaqaday samey jireen dhan hadda waxaa la rabaa inaan anaga samayno odayaashii xitaa waxaan ku qasabnay inay shaqeeyaan wax shaqayn kara waxaa ka haray wax yar wiilasha sanad dhasha daaya sanadka xigana gowraca oo sanad dhaaf u wada boqorkaygiiyow maxaad caqli iyo xikmad badan tahay sidaa haddii la sameeyo ma yaraanayaan aadna uma badanayaan sidoo kale nebiyullaahi haaruun calayhi assalaam waxa uu dhashay sanadkii saamaxaadda reerku aad ayay ugu farxeen laakiin hooyadii isla sanadkii ayay uuraysatay taas oo macnaheedu yahay in ilmaha ay dhasha haddii wiil uu noqdo uu ku beegmayo sanadka gowracaadda oo ay noqonayso in la gowraco iska warrama soo dhawow kani waa haaruune waa wiil yaroo wanaagsan bal halkan fadhiiso walaalay gabadhaydii aamus wixii dhacay waad u jeeday wiilka yar noodaa oo qalbigaaga naxariis nooga raadi haaruun hooyadiiye haddii runta aan kuu sheego maxay waxaan u soo baxay in aan nimanka wax gowraca u sheego wiilkaaga laakiin wiilkaagan qalbigayga waxa u gashay naxariis aan weligay ilmo kale u gelin waxba sheegi maayo ee wiilkaaga ilaasho ilaahay ayaa mahad iska leh ilaahayow adiga mahad iska leh alla maxaad weynaatay gabadh yahay maxaad ugu daweyn weyseen baraska gabadhayda boqorkeenniyow annaga ma hayno wax aan ku daaweyno laakiin waa isku dayeynaa wixii tabarteenna ah mar labaad ma qiraysaan awood la'aantiinna boqorkeenniyow na saamax oo noo dembi dhaaf macbadkii waad dhisi weydeen sow maaha haa maxay tahay sababtu boqorkeenniyow macbadka wuxuu u baahan yahay maal badan oo aanan haysanin soo aruusha haddii aadan haysan reer bani israa'iil waxba ma bixiyaan sababtoo ah waxay ka sheegtaan faqri ciqaaba qoraxda markay dhacdo ayaan ku bilaabanaa inaan ururino oo aan qasab uga qaadno waxaan qasab uga qaadaynaa waxa ay hayaan oo dhan waxaan haynaa masado waxaan haynaa bariis waxaan haynaa basal baasto waxaan haynaa hilib iyo caano kaadoo iibsado waa cunto aad iyo aad u wanaagsan suuqa maanta aad buu shidan kusoo dhawaada walaalayaal maxaan kaa iibiya abay waxaan raadinaa sanduuq oo alwaax ah sanduuq intee la eg koo yariis ah oo intaas la eg noocaanoo kale ma rabtaa borobiyo kan oo kale oo kan dulduleel buu leeyahay ma haysid miyaa mid aan dulduleel lahayn alwaaxaa ku kabi karaa sidaas ii samee alloora beri subaxii usoo laabo marka maya haddaan rabaa aniga taas suurtagal maaha abay waxaad rabtaan dhiiba fiir abay ma wiilkaagaa dhintay maanta maya maxaa waaye deg degaan ku soo gala adiga bal maxaa kugu dhacay ii sheeg waxa jira si aan arrintaada wax oga qabto okay idhegayso kooladan qaad mari meelaha uu ka dulduleelo sanduuqa oo dhan aadaad u mahadsan tahay
si degdeg ah halkan oga bax si uu qofna ku arkinba hooyo dhaqso hooyo nimankii wiilasha gowracayaa jooga dhaqso وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وحأوا إلهي سبحانه وتعالى وحيودي نبي الله موسى عليه السلام هو يدي نوج ويلكاغا يرئي موسى مركي أدو بغضينا كتور هيرك بدا هنا والولين هنا مرغونين ونكوسو علين دونا وحانا كدغينا رسول كميدا رسول إلهي mee walaalkay hooyo mee walaalkay waxa uu ku jiraa sanduuqa hirka biyaha qaaday ha warwarin ilaahay ayaa inoo soo celinaya isagoo nabad qaba sidee aayar soco oo mar webiga dhinaciisa oo isha ku hay waayahay ishaan ku haynayaa laakiin isku day inaan cidi ku arag waayahay waa walaalkaa waxa sanduuqa ku jira marna ishaadiyay ka jeedsan markaad fursad heshidna ii soo sheeg صندوقي waxa uu sii socdaba wuxuu ugu dambeyntii ku soo caariyay qasrigii fircoon isaga oo uu ku jiro nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo wiil yar ah waa maxay waxaasu bal keena halkan fur suga anaa isku dayay inaan fure allah waa wiil yar oo qurux badan alla maanta maalintu fiicana alla ku jecliyey wiil yow yari waa reer bani israa'iil waa reer bani israa'iil boqorkaygiyo dila wiilkan yar waa wiil yaroon dembi lahayn waa reer bani israa'iil sidaad adiguba og tahay haddii uu yahayna maynu ka dhigno mid dhashay sanadka cafiska laakiin sanadkani sanadkii cafiska ma aha waynu korinaynaa waxaynu ka dhiganaynaa wiil korinaynaa wuxuuna inoo noqon doonaa mid indhahaynu ku doogsadaan naag nuujise u raadiya intaa inka badan ma sugi karo waan u tegayaa waanan u sheegayaa laakiin hadday gartaan inuu wiilkaaga yahay way dilayaan yaa allah yaa rabbi
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نبي الله موسى عليه السلام هو يدي قلبي وحاول نغض من مرن وحني ومرغون سويل كيدي راي موسى وحي كسيغت إني جدتك أصوه بحضو ويكو قيلسو وحائق مقاوي لكن إلهي سبحانه وتعالى أي قلبي السوي أو كدي قف مؤمن هذا qasriga meel u dhow tag oo soo dhageyso waa intaasoo soo maqashaa war aynu ku faraxnaa dhaqso hooyo boqoradaydii caanahayga ma doonayo sidaas uu diiday dumarka oo dhan u yeedha gabadh kaloo nuujisa qasriga ma joogto gabadh kaloo wax nuujin kartaa fikrad baan hayaa xambaara suuqa la soo mara oo soo raadsha gabadh nuujisa xoogna u taxadara aniga wuu idiiday sidaas uu diiday dumarka oo dhan maxaynu yeelnaa mid kaloo nuujisa hala raadiyo war mid kaloo wax nuujisaa ma jirtaa anigu ma idin tusaa qof idinka caawin kara oo nuujin kara kaalay gabar yahay miyaa taqaanaa wiilkan aniga maya ma taqaanid ma aqaan mana tusi kartaa naagta aad sheegaysaa wax nuujinaysaa haa haddaba dhaqso وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نبي الله موسى عليه السلام وحاو إلهي سبحانه وتعالى كإلالي إنو نوغو دمرك كليتو iyaga oo wareersan oo waxay sameeyaan garan la ayaa gabadhii yareed ee walaashiis waxay ku tiri ma idin tusaa qof wiilka yar dhaqaalaynaya oo u samafalaya رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس هلا سوقلي قصرك gabadha ma aniga qasriga ku noolaanaya haa annagaad nala joogaysaa si aad wiilkayga u nuujisid anigu weligay qof uma jeclaan sida aan isaga u jeclaaday gurigayga kama soo tegi karo oo carruurteeda iga dayacmaysa qasrigan waxaad ka helaysaa wax alla waxaad doonaysid carruurteeda i tabaysa waxay doonayaan oo dhan baan u diraynaa aad ayay iigu baahan yihiin carruurtayda markaad firaaqa haysid ayaad u tegaysaa ma awoodo laakiin waxaan samayn karaa haddii aad ii ogolaato inaan wiilka gurigayga la aado gurigaaga haa gurigayga waxa uu ka heli doonaa khayr badan mana samayn karo taa wax ka gedisan waan ogolaaday laakiin ilaali wiilkayga gabadhan ha la siiyo wax alla waxay rabto waayahay boqoradaydii iina keen oo isoo booqa mar walba waayahay gabadhan ha la siiyo wax alla waxay rabto فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وحا إلهي سبحانه وتعالى أسوعلي نبي الله موسى عليه السلام هو يدي سيشيد أمرها حيثته وآني أمرقون إسلام مركانا يوغاتو إني بلانت إلهي تعيمد حقه لكن تادت كبدا كيسو مقرنيان أو موغا سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان maanta waxa ay soo booqanaya wiilkaygii waxa la arki doona sida dadkoo dhan uga wada helaan ay u jecel yihiin
wiilkan aad baan u jecelahay waxaan kuu geynayaa aabbahaa si uu kuu karaameeyo wiilka yar hala dilo waa cadow boqorkaygiioo ma yaqaan waxa uu samaynayo u keen haddaba dhuxul yar oo dab ah iyo weel ay ku jiraan wax qurxoon ma aragtay ma kala saari karo dabka iyo waxa kale weli waa wiil yar ilaahay baa mahadle wiilkaygan yari waxa uu kaaga mahadnaqayaa waxa aad siisay فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وحاقات نبي الله موسى عليه السلام فرعون إيا تدكيسة إساقوا النغندون علئي والبهار فرعون إيا هامان إيا عيدا كيسوا وحي هايين كوقفي كردر وحي تري فرعون حاس كيسو wiilkan yar waa raaxada ishayda iyo taadaba hadilina waxaa dhici karta inuu ina anfaco oo aan ka dhigano wiile iyaguna xaqiiqda iyo arrimuhu siday ku dambayn doonaan maysan garanaynin سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة